Soomaaliya lagu kala cararo qof kasto meeshaad ka aadi karta ka aad sababtoo ah cadaaladu ma taalo dhalinyaradii waa ay ku cadiban yihiin dhalinyaradii madaxa looga taagan yahay shaqo ma haystaan kii hadlo waa la xirayaa waa lagu bahdilayaa gabdhihii waa lagu dhibaateynayaa wiilashii waa ku dhibaateysan yihiin wax cadaalad ah oo Soomaaliya aan ka sugayno iyo wax aan ka rabno Soomaali waxay tiraahdaa nima war u adkeysan karin waran uma adkeysan karo madaxweynaha iyo waxa madaxweynaha hal wada u furneed wadada u furneedna waxa ka soo xiray booliiska 3 sano oo xabsi ah ayaa loo jaray gabadhan waxaana lagu xiray si sharci darro ah wax ay galabsatana ma lahan Soomaaliya hadii aad cadaalad ka sugaysaan walaal cadaalad kuma soo socoto hadii aad meelad ka aad taqaana Soomaaliya ka aad sababtoo ah hadii lagu soo damiiciyo ama laga damco in lagu dhibaateeyo waxba naftaadu ma aha hadii la damco in lagu xirana sida gabadhan oo kale ayaa lagu xiraya gabadhan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iska aamusiyay oo shib iga dhehayri isla markaana xabsi 3 sano ah oo aysan mutaysan ayuu ku aamusiyay sababtii loo xirana waxa ay ahayd eragan xorriyatul qowlka ah oo ay dawladda dhaliil ugu soo jeedisay bal iradaa wixii lagu xiray nimada anaga dawladnimada kama xubnay wili anaga madaxweynaha noo yahay madaxweynaheeni waa laakiin maanta in la caburiyo shacabka oo la dhaw dareenkiina ma ka hadli kartaan u fiirso labadan gabdhood waxa ay isku qaateen hub si ay iskugu dilaan magaalada Muqdisho lama xirin lama dhibaateen waa la sii daayay sidoo kale wiilkani sida gabadhan ay u dhalishay Xasan Sheekh Maxamuud si ka daran ayuu u dhaliilay waa la xiray wax yar waa la soo daayay waxa maxkamadda ma xukumay sidoo kale ninkan xaaskiisa ayuu gubay free ayuu yahay qurbaha ayuu iska raaxaysanayaa xaaskiisa ayaana god ugu jirta waana la sii daayay gabadhani markay xorriyatul qowl ku hadashana oo ay wixii ay cabiri kartay dawladda ku cabirtana xabsi ayaa loo dhaadhacay gabi ahaana halkaas ayaa nolosheedii lagu soo gabagabay cadaaladda aan ka sugayna Soomaaliya maxay tahay